haddaad ilmahaaga tidhaahdo kaalay hooya waxbaan ku siinaya markuu kuu yimaadana aad qabsato dariskii koowaad ee beenta adaa baray weligaaba dhee hooya beenta lama sheego dariskii koowaad ee sida beenta loo sheega ah guriguu ka qaato mashkilad maaha markaa isaguna berrita markaad tidhaahdo orad malcaamadii qabo ama iskuulkii qabo intuu suuqa iska galo hadhow markaad tidhaahdo xaggaad ka timi hooyo uu ku yidhahdo waxaan ka imi iskuulkii intuu meelahan dhexe ka soo wareego waayo adaa baray waaqaca iyo waxa la sheegaya inay iskhilaafaan aduu kaa arkay inaad odhanayso kaalay wax ku siiye oo dabeetana aad qabanayso aabbuhu ka arkay inuu leeyahay aabba waxbaan kuu soo iibinaya guriga sii joogo iskaga reebayo oo markuu tagana aan waxba u soo iibinaynin waxaan leenahay marka haddii aynu rabno maalan ilmaheennu inuu ka xoroobo inaanu been sheegin waa inaynan been kula dhaqmin ha is odhanin caqli ma leho wax fahmi maayo uu fahmaya ha ku talagelin inaad marnaba been u sheegto ku talagal waxa aanad siinaynin inaad isku daydo inaad ka qancisid laakiin ha is odhanin yacni waxba fahmi maaye ku khawaysi waxaad tidhaahdaa adigoo suuqa qabanaya hooyo waxaan ka soo noqonayaa madbakhaan gelayaaye iska sii fadhi waa kow tusaale labaad baan idin siinaya oo cadaaladda ku saabsan waxaad jeceshahay ilmahaagu inuu caadil noqdo inaanu hadhow dulmi samaynin inuu dadka mid u garnaqa noqon karo mid xaqa ku taagan inuu soo bixi karo sidee baad ugu tarbiyayn lahay xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan saxaabiga la yidhahdo nucmaan ibnu bashiir ilaahay isagii aabbihiiba raalliha ka ahaadee ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa gacantay soo qabtay aabbihiioo wada ayaa wuxuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waxaad markhaati ka ahaataa inankayga nucmaan ibnu bashiira hulaam baan siiyey buu leeyahy addoon aan lahaa baan siiyey inankaygae markhaati ka ahow nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey su'aal markaa oo carruurtao dhan ma siisay buu ku yidhi yani carruurtaadii oo dhan mid walba maad siisay markaasuu yidhi maya nebigu wuxuu ku yidhi markaa farjichu la noqo haddaba riwaayaadka xadiidka qaar ka midii waxay sheegayaan falaa tashhadnii idan inuu nebigu ku yidhi waar aniga waxaa hayga markhaati gelinin anigu dulmiga kama markhaati galee buu nebigu yidhi waa maxay dulmiga uu odayga kani sameeyey odayga kani carruurtiisiibuu mid xoog u yaro jecel yihi jacaylku kolle waa mas'ala qalbiga ah oo waa laga yaabaa inaad simi karin dadka laakiin dhaqanka waa inaad u sintaa waa laga yaabaa ilmahaaga in mid aad kuugu jajabay aadaadu jeceshay laakiin sida aad ula dhaqmayso iyo waxsiintooda waa inaad sintaa ma aha waxa qalbigaaga ka guuxayo qura inaad ku xukunto aabbaha kani wuxuu doonayey saxaabiga ahi carruurtii uu dhalay mid ka mida inuu wax gaara siiyo oo uu yidhaahdo haddaan dhinto yacni waxaa isagaa iskale inta kalena waa dhaxalkaad dee ku wada gelaysaa masaladani maxay tahy masaladan waxaa ka muuqata inuu aabbahani doonayo ficilkan markaynu sharaxno waxa weeyaan waa ficil dulmiya waa ficil jawra waayo carruurta isagaa wada dhalay waa dhashiisa waa inuu si siman ula dhaqmaa ma ummaddaad si siman ula dhaqmi karaysaa haddii kuwaad dhashay adigu aanad si siman ula dhaqmi karin sidee baan idinka idinku cadaalad samayn karaa haddii kuwan anigu dhalay aanan u cadaalad samayn karaynin macquul maaha cidda ugu dhow ee loo cadaalad samayn kari lahaa waxay ahayd kuwaan dhalay ee gurigayga jooga haddii kuwaan dhalay aanu cadaalad samayn kari waayo ma suurtagal aha inaan idinkana idin cadaalad samayn karo haddii la rabo markaa ilmahan in cadaaladda la baro waa in lagula dhaqmaa maxay sifo cadaalada wa ilaa ilmaha kani muxuu baran lahaa wuxuu baran lahaa hadhow markuu weynaado dadka inay siman tahay in midna la dilo midna la sii daayo midna wax la siiyo midna la dafiro laba qof oo xafiiska ugu wada yimi midna inuu wax u qabto midna inuu celiyo waayo aabbihiiba arkood dee labadoodii walaalaha midna wax siinaya midna iska eriya idan waxaan leenahay ma bannaana buu nebigu tilmaamaya inaad mid wax gaara siiso haddii maalan ay tahay tacliin lagu baratansiiyo mid abaalmar wixii lagu siinayo ama fiicnaan lagu yacni waxyaabahaasi waa masale gaara laakiin intaad un tidhaahdo waan ka yaro jeclay hebel dadka kaloo isaga in yaroo dheeraadaan ugu daraya intaa yaro dheeraadka waa xaaraan carruurtaadu waa inay isku in wada heshaa inay ku siman yihiin waa inay heli karaan